kulan ballaaran oo ay yeesheen waxgaradka culimadiinka uqaasha dhalinyarada qurba joogta aqoon-yahanka iyo hooyooyinka beesha jaarso ee deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay kaga tashanayeen danaha beesha jaarso ayaa waxay ugu horeen ay u tacsiyeeyeen eheladii iyo qaraabadii dadkii Soomaalida ahaa ee xasuuqadareedka arxandarrada loogu geystay deegaanka Oromada isla markaana ay gacanta ka xaqdaran dishay iyagoo ku tilmaamay inay tahay dhacdadani falfool xun. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan maanta halkan tacsi tiiraanyo iyo murugale aynu uga diraynaa shacabkeennii Soomaaliyeed ee bishan taasaasee aan ku jirno shanteedii lagu xasuuqay degmada Daarulaba qabaleega Degalu waxaanu leenahay dadka masaakiinta hooyooyinka caruurta abayaasha uurleyda birmageydada ee sida wadarta loo xasuuqay waanu ka xunnahay waanan cambaaraynaynaa ciddii ka dambaysay xasuuqa iyo ciddii falka geysatay waxaan ugu baaqaynaa in la hor keeno sharciga jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya si looga qaado tallaabada ku habboon gabi ahaanba dadkii dhibta gacantooda ku geystay iyo kuwii ka dambeeyay labadaba. maanta halkan waxaan beesha jaarso aan iskugu nimitay dhacdooyinka sharciga ka baxsan xuquuqda bini'aadanka liddi ku ah gaar ahaan dadkii Soomaaliyeed ee lagu laayay Daarulaba iyo Belbeleyti iyo nawaaxigeeda waxa weeyaan dadkaas waxa iskama aan dad dhacdo dagaal ama xuduudaha iyo meelahaas ma aha waa bartamaha Itoobiya bartamaha Oromiya weeyaan dadkaasi waxay ku noolaayeen ilaa 7 ilaa 8 fac ayay ku noolaayeen halka ay deganaayeen waa dad ka tirsan bay ahayn maamulka Oromiya Soomaali ahaan ayaa iyaga oo inta lagu ururiyay xere bilays ah ayaa lagu gumaaday oo la googooyay kadibna inta la gubay lagu xereeyay god lagu riday arinan dhacdada noocaasa waa mid aanan wali adduunka ka dhicin qof inta la dilo waa la gartay qof inta la dilo la gubo haddana la qariyo oo la aasamee la kama dhicin arrimaha noocaasi waxa weeyaan xuquuqda bini'aadanka wax ka baxsan weeyaan maxaan haddaba cambaaraynaynaa oo maanta halkan isugu nimiday haddaan beesha jaarso dadka sameeyey dhacdada noocaas ee foosha xun ee ummadda Soomaaliyeed ee halkaa ku nool gumaaday ee weliba inay qariyaan isku dayay waan cambaaraynaynaa waana ka soo horjeednaa kuwii dhintayna waxaan leenahay soo kama soo horjeedno waa ka soo horjeednaa dadkii waxaa sameeyeyna waan cambaaraynaynaa waxaanan shirkan ku codsanaynaa in dhacdada dadka laayay in la hor keeno sharciga oo tallaabada ku habboon in laga qaado ayaan dawladda deegaanka iyo dawladda federaalka baan ka codsanaynaa in dadkaas maxkamad la hor keeno oo sharciga la waafajiyo ayaan codsanaynaa waxa weey beesha jaarso anoo ah oo magaalada Jigjiga u dhashay oo ku bilaabaya magacayga Malyuun Yuusuf Ibraahim oo salaamaya beesha jaarso waxaan leeyahay xasuuqii Belbeleyti ka dhacay dharaartii dhaweyd ee bishu 5 ahayd xasuuqii ka dhacay horta ilaahay u naxariis waasaca ilaahay ha siiyo iyaan dadka leeyahay aamiin dhaha dadkii kale awada iyagana ka dhacay ama sameelaha lagu gumaadayo Oromadu ay ku gumaadayso ummadda deegaanka Soomaalida ah ee Oromada la nooleyd ay ku gumaadayaan meel walba ay Soomaali joogto Allah naxariisto marka ugu horeeya ugu dambeynna waxgaradka culimadiinka uqaasha dhalinyarada qurba joogta aqoon-yahanka iyo hooyooyinka beesha jaarso ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa si guud uga marakacay horumarka baaxadda leh nabadgelyada iyo maamulka Sooban ee ka hana qaaday deegaanka sidoo kalena waxa ay ballan qaadeen inay barbar taagan yihiin had iyo goor xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya horumarkaasi kala duwan ee xukuumaddu ku howlan tahayna ay kaalintii ku leeyihiin ka qayb qaadan doonaan mudane madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar horumarka aynu gaadhnay deegaankeenu u gaadhay 9 sano ee u dambeysay horumarka xawliga ee waxa weeyaan itus oo itaabsi ah haddii ay tahay horumarka laga gaadhay dhinaca biyaha hadday tahay horumarka laga gaadhay xagga caafimaadka beeraha waxbarashada wadooyinka horumarinta magaalooyinka
inay ku timiday in badan oo loo fikiray iyo dadaal uu la yimid madaxweynaheena sharafta leh madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo xisbigeena xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ciidamadana liyu booliska oo nabadgelyadii deegaanka markay meel saareen u soo jeestay inay ka shaqeeyaan horumarka iyo waxa weeyaan wax soo saarka beeraha wadooyinka iyo caafimaadka oo aad ogtihiin markii ugu dambeysay kaabada waangay inay isku xidhay degmooyin badan oo ay horteed intii aan la sameyn marnaba in la tago aanay suurtagal ahayn taasna waxa weeyaan ay hirgeliyeen ciidankeena qaaliga waxaan ka soo horjeednaa cid kastoo ciidankeena ka soo horjeedaan ka soo horjeednaa waxaan ka soo horjeednaa cid kastoo nabadgelyadeena ka soo horjeeda waad arkaysaan maamulka inta 10 sano ugu dambeeyay waxa uu qabtay horumarka waynu arkaynaa bal meel kale iska day magaalada Jigjiga hadaad eegto gudaheeda laamiyada la sameeyay wadooyinka maaragtay cobblestonka ay la sameeyay waxa weeyaan waa horumar waxa weeye daarahan fogaqa aan arkayno waa wax soo kordhay weeyaan dhinaca dawladdu wax badan waxay ka qabatay waxbarashada caafimaadka beeraha iyo hay'adaha iyo biyaha oo waaga hore kililkeena oo meelaha ugu oon badan ay ahayd maanta waxa weeyaan meel walba magaalo walba shacabka laga dhergiyaa biyo laga cabaya taana waxa keenay xisbigeena iyo madaxweynaheena dawladda uu hogaaminayo ayaa keenay in horumarka la gaaro inaan isbarbar taagno inaan la shaqeyno nabadgelyada kala shaqeyno horumarka kala shaqeyno in aan maamulka suuban inaan kala shaqeyno isbarbar taagnaa loo baahan yahay ma ballan qaadeen sida ma ballan qaadeen ballan way waxa weeye wixii hadda ka dambeeyo waxaan ognahay waxaan isku ogaanaynaa inaan dawladdeena aan isbarbar taagno ay isla taana ballan qaadayno waxaan si gaar ah inaan u tahniyeyna oo isku garab taagnay tahay ciidanka liyu booliska oo ognahay nabadgelyada uu ka dhaliyay deegaanka xabaddu waa tii Jigjiga inoogu timid inta dhulkoo dhan soo martay al-ittixaad iyo al-shabaab waxay ka sameynayaan dawladaha jaarkeena wada aragtaan maanta cid xuduudda weyn inooga soo gudubta male xukuumadda wanaagga badan sharafta badan xisbigeena wanaagsan intaba waynu u hogaansanahay waanu garab galaynaa wabillahi tawfiiq kanan ku jiro fooqan ku jira marqaatiye shalay muu jiray de maanta soo ma jiro fooqan ku shiray xawliga ay ku socotana waa taa la arkay biyaha meel kasta aqal kasta ee magaalada Jigjiga lagu garaaca biyo ma idin gelinaa biyo ma idin siinaa baa la yiraahdaa anu xafiiska haweenka iyo ururada haweenka u shaqaynayay waana tagay meel kasta mar kasta waana la dhaleeceynay waxa la oran jiray mindina juunaantay maxaa tiin maantana namadna geynaysi kililkiinu baa la igu qasbay inta la gujiyo qaata inaad Jigjiga tagno oo maxaa la yiraahdaa ay dawladda deegaanka qurxida badan soo aragnaa la yiraahdaa yaa la igu yiraahdaa shalayna ma hadli karayn marka maanta hadaan meel walba aad saabo taga meel kasta waa faanaya waxaan ku faanayaa nacam madaxweynahayga iyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalidu tuu u galay madaxweynaheena soo ma garab taagnin xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya soo hiiliyahooba kuma garab taagin cadawgooda Allah jabiyo oo ka dib u dhacayna Allah ka dhigo cadawgooda Allah jabiyo oo ka dib u dhacay Allah ka dhigo maanta waad ogtihiin oo deegaanka hadday waxbarasho tahay hadday tahay caafimaad hadday biyo tahay hadday horumar kale oo beereed tahay intaba meesha la maraya waynu wada ogsoonahay ugu dambeynna waxgaradka culimadiinka iyo aqoon-yahanka beesha jaarse ee Soomaalida Itoobiya ayaa hoosta ka xariiqay inay garab taagan yihiin waxqabadyada horumarineed nabadgelyo iyo nidaamka maamulka suuban ee xukuumadda deegaanku gaarsiisay guud ahaanba shacabweynaha deegaanka waxayna cadeeyeen inay hal meel uga soo wada jeedsan doonaan wixii dhibaataynaya horumarka ka hana qaaday deegaanka iyagoo digniin u diray cid kasta oo xaqiraysa horumarka iyo nabadgelyada ka hana qaaday deegaanka isla markaana bogaadiyay waxqabadka xukuumadda haddaba waxgaradka culimadiinka iyo aqoon-yahanka beesha jaarse ee Soomaalida Itoobiya ayaa waxay cadeeyeen in shacabka deegaanku yahay shacab jecel horumarka iyo nabadgelyo ku wada noolaanshaha qoomiyadaha iyo shucubaha dalkeena Itoobiya